السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ورمسيتين في عنتين وحارجينا في عنتين دمانتين أنا كان سيدو كل في عنها الحمد لله. هلا السود وهذا ما أنت روتين كان سيدان كبلا وفول روتين مركو حارجينا إلا دماتكنا إلى تشوقنا بإذن الله. انت هوري إلى جوجد وحان لي هاي إلهي هاي شرفو انت كلو إيقو عصبنا وحان لي هاي هلا السود وهذا marka rootinkeena saaka halkaan uu ka bilaabanayaa adiga xilligan aan fadhiga soo galay waa 11 subaxnimo meeshaana waxaan rabaa inaan adkaar sabaaxayga iyo quraankayga iska soo akhristo kadib aan jikada soo galo aniga rootinkayga waxa kamid ah oo marna ilaabin alxamdulillah waxa kamid ah inaa habeen walba markaan seexanay guriga quraan ka shido ilaa subaxa dambe 5 saac buu noo shidnaanayaa quraankaas alxamdulillah. marka hadaan jikadan soo galay mala waxa meeshan soo qastay waxaan ku soo daray laba xabo ukun ah iyo maxaan dhahayo waxa waay 3 koob oo bur ah sonkor yarna waan ku soo daray aniga waxaan sameeyaa markaan waxa la dhahayo burka diyaarsanayo mala waxa birta dabka waan sii saartaa si ay igu sii kulaato hadhow waqti kale iga qaadan hadana inaan sugo intay birta soo kulaanayso. marka hadda markaan mala wixii qastay waxaan dareemay xoogaa inuu yara adag yahay biyo yar aan ku soo daray waa kana hadda sidaan aan ku soo wadana maasha Allah. marka saaka quraacdeena waxay ahayd malawax canjeerada saaka eedana waa loo gambiyay inkastoo hadda canjeeray malawax wax badan ay isdhaamin ay jirin oo cunto Soomaali iska tahay. marka sidaan aan ku soo wadana waxaan rabaa inaan quraacda soo kariyo maxaa la dhahayo ilmaha dugsiga geeyo kadib aan soo laabto shaqa ay taalo maanta. marka sidaan aan ku soo wadana insha Allah ilaa dhamaadka ma rabo ilaa dhamaadka inaa aragtaan inta Dubai leena waa ku caajisaysan hada maanta dhan anoo mala wax Dubai aragtaan. marka waxaan rabaa dhowr xabo markaan soo dubo inaan kaamirada iska damiyo insha Allah. hadda xataa markaan Dubai waxa moodaa inuu yara adag yahay birtaan kuma dubi jirin birtaan canjeerada un baan ku dubtaa bir kale aan ku dubi jiray birti kalena waxa la dhahayo saaka waxa irbaltan tijaabi oo tan ku dubal tan baaba kala arag igu soo baxdayba. marka mala waxa waa waxyaalaha ugu fudud maxaa la dhahayo ilmahan ay jecel yihiin inay cunaan subaxdii canjeero la cuno subaxa kale waa in loo gambiyo oo wax kale la cuno. marka sidaan aan ku soo wadeena maalmaha waa iska maqnaa caajis maxaa la dhahaa mashquul laakiin hadda waxaan rajeynayaa caadi u soo laabtay insha Allah oo maxaa la dhahayo maalin dhaafkayga aan fiidiyada soo dhigo biidnillah. marka maxaa la dhahayo koronto la'aan waa iska jirtaa baryahaano Nairobi korontada maxaa la dhahaa dumar roob bilowdo korontada Ilaahay baa xalkeeda og way iska tagayeen ma kula tashanayso iga yaabisay. marka anoo laga yaabo inay energy u haay inaa wax duubo oo isdiyaariyo la wax duubsid waxa laga yaabaa inay korontada iska tagdo mar niyadaada ka saartay inay wax duubsid oo ka niyad jabtay ee soo laabanay. anigana waxa ahay dadka marka maxaa la dhahayo wax u haayaan energy badan haday wixii si iga noqdaan maxaa la dhahaa hadii xataa ay korontada marka wixii markaas ay soo laabtaan hataa energy badnaa haday haay mahiinay waxaan leeyahay iska dhaaf maalin kala qabanay hadda markii aad energy u hayso wixii waa halaabeena dabeecad fiican ma aha sidaas waxa fiican mar walba inaad go'aankaaga ku taagantay wax walba ka halaabo wixii markay soo laabtaan inaad sidaadi u energy badnaato fiican. marka Ilaahay iga jiro dabeecadaas marka hadda insha Allah waa isku soo laabaneena waa ku mahadsantihiin sida quruxda badan ay dhiirigelisaan ay daawataan waxyaalaha igu sababay inaan markasta video qurux badan soo duubo adinka u sabab ah Ilaahay ha idin sharfo. marka mala waxa markaan sidaan u soo dhameeno waxaan sameynayaa meeshaan waxaan rabaa inaan ku soo kariyo hilib yar oo soo kalan kaaliyo waa isla arkayna asagana sidoo ku soo baxay insha Allah. mala waxyaaba dhamaan la shaqadiisa waxa u qab inaan wax yar mala waxa ka duubay dheer badan ama dhamaanaye marka sidaan gaduudka quruxda badan oo mala wax igu soo baxay maasha Allah la waxa buu ku nada ku soo dirsid oo qasitaankan si fiican u hagaajisid kaal iska aragan ku dhahay lagama sheekeyn karo sidoo ku soo baxay indhuhu u roon yahay asagoo la cunin maasha Allah. marka hadda markaan sidaan u soo dhameeno mala waxeena inkastoo hadda dhamaanin
sidaan waa kana hadda wuu soo dhamaaday. birtian dabka kasoo qaadayaa, waxaan soo saarayaa birti kale oon hilibka kusoo karsanaa. meeshaana waxaan rabaa hilib digaag oo jiir ah ama boneless inaan soo kariyo. mala waxayni sidaas kusoo baxay, inkastoo lasii qaadanayo wixii lasii dubabo intaasaa kasoo hartay oo la rabaa in suugo yar lagu cuno. marka meeshaana saliida dabka soo saartay, hilib yar oo jiir ah oo digaag ahaan kusoo shubtay. ani hilibka markaa sida u karinayo waxaan jeclay marka hore saliid bis inaan ku kariyo, basasha inaan gadaal uga daro, sidaas aan ila macaan. laakiin markaan waxyaalaha kale u sameynayo marka hore saliida dabka saari, markay soo yaro kululaataan basasha ku dari, markaasaan wixii kale aan ku dari karo ku dari. laakiin qaabkan markaan u karinayo waxaan jeclahay basasha inaan dib marsado. marka waa kana hilibkeyga hadda waxaan rabaa inuu horta saliida kusoo yara kulul kusoo yara karo oo gudguduudkii waxaas uu kasoo baxo. kadib meeshaan aan babrika kusoo daraya maadaama ay tahay cunto quraac, kama badinayo xawaajiyaasha, waxyar aan ku daraya. waxaan kaloo kusoo darayaa garam masala. intaa markaan isku soo daro si fiican isugu soo walaaqaya inay isdhex galaan, si fiican isku dhex galaan oo waxaan dhahayo kalar isku wada eg ay noqdaan maasha Allah. sidaan markaa u karsatay digaag waxaan ku dhahay lagama sheekeyn karo, hal soo tijaabiyo. marka sidaan markay noqoto waxaan kaloo kusoo darayaa cusbo yar, ayadana kama soo badinayo, wax yaraan kusoo bidbidinayaa. kadib markaan wax yar sidaan ugu soo bidbidiyo oo isdhex gasho oo isdhoo hadda leeyahay wuu karay, baa waxaan soo qaadanayaa daaniyo iyo qumbo. daaniyadan intaas ka soo hartay bisha aakhir ee maraysa Soomaa, bisha waa inay la dhamaato insha Allah. qumbihii idin sheegayay waayo oo maalintii adeega aan soo gadanayo idin dhahayay inaan waxaan rabaa aan kariyo, inaan hagaajiyo oo ka hagaajiyo coconut cream, kadib aan idin tusi doonaa. laakiin maalintaas sameynayay ima saamixin inaan soo duubo, hal iska raali noqdo. laakiin next time insha Allah marka ugu soo horeyso waa idin soo duubaya sidoo qumbahaas kusoo baxay. qumbo oo laba qaado daani ah aan kusoo darsaday. xaafadan qumbaha iyo anaga waxaan ku dhahay il iyo aragtiya naga dhaxayso, wax walba oo karsaneyno inaan ku darsano bayba u badan tahay wax kasto, cuntada dhadhan aad u macaan u siinaya. marka waa kana hadda hilibkeenu wuu soo karay, basashi aan horey uga dari lahaa waa kana gadaana uga soo daraya ayadii 3 nooc barbarooniga. ani 3 nooc barbarooniga ma kala harno, cuntada waxay siinaysaa qurux zaid ah maasha Allah. marka hadda waa kana diyaar waaye. meeshaan hadda quraacda la soo ridaya maasha Allah, sidaan quruxda badan ay kusoo baxday. Allahumma baarik. quraacdeena saani u qurux badan saaka. ilaahay ha noo barakeeyo, intaan haysanin ilaahay ha siiyo insha Allah. marka kadib markaan hadda quraacdeena saan usoo karsanay waan baxayaa, ilmihii baan waxaan geynayaa dugsiga, waa iska soo laabtay. hadi meelahaas aan u taagnaa wax kasta maadaama aan la duubi karin, dhar yar oo gadaal ku warnayaan ani iska lahaayaan soo qaaday. inkastoo baryahan roobka uu naga dagay inuu zaid yahay, waxaa moodaa in la yiri roob oo haba dagin, markaas dharka xitaa ma qalalayaan. markaan oo kale dharka dhan waa nici. hadda dharkan shalaa la dhaqay, 4 joogo baatiga bisa ka qalalay, wixii kale waxaad moodaa hadda in la ware ma qalal rabaan xitaa mar dhow yaab. marka intaan iska soo qaaday waxaa iri bal intaan waqtiga qadada la gaarin maxaa la dhahayo intaan iska soo laalaab. daaqada xitaa way furantay, qabowga kasoo galayna waxaan ku dhahay saaka marka inaan dugsiga geynaa xitaa roob da'ay, ilaa haddaan roob da'ay, qabowga maasha Allah. jaakadka lama siibaan ku dhahay markaan oo kale. daaqadaha waa inay xirnaadaan, intay furan yihiin intay xiran yihiin badan. alxamdulillah. marka waa kana hadda dhowrka baatiyo soo maxaa la dhahayo soo qalalay meeshaan soo laabaya. waxaan rabaa intaan la laabo inaan qaanado hooda geliyo. marka waa shaqo aduun. markuu roobka da'o waxaan ku dharka ma qalalayaan, ana waa necab dharka markay saas u qoyn yihiin maanta dhan, ilaa dharka way iska daba imaanayaan oo ilmaha xaafada joogo kuwii hore qalalin oo dhowr bir xariga saarna waxa laga yaabaa in kuwa kale ee maxaa la dhahayo soo wasaqoobaan, kuwii kalena kuwii ka horeeyaba qalalin, kuwii dambe xagee lagu wari waayo. waa sha'ni aduun. marka sidaana ku soo wadeena hadda dharkayga waan soo dhameeyay. kadib meeshaan aan qadada soo karsanaa ma soo duubin qadada markaan karinayay, qadada iska soo karinaya mar la gaaro aday 5 saac meelahaasaan jikada gali inta ilmaha dugsiga ka imaanin, qadadeeda iska soo karini. markaas kadib insha Allah isla arkeena waxyaalaha kale xigo. dharkayga hadda waa dhamaad, way soo dhamaadeen.
hal dirac iyo hal garbasaar oo kale iyo hara umaleynaa markaan ayagana waa kusoo darayaa waan soo dhameeyay marka maxaa la dhahayo alxamdulilah ilaahay mahad iskale comment iyo like iyo subscribe yaa nagala iloobin inkastoo eedan naga iloobin oo aad ii dhiirigelisaan haddana waxaan leeyahay videoga markaa fiirsanaysiin like-ta dhacdhac lagu siiyo insha allah anigana waxay ii tahay dhiirigelin marka xilligan qadada waan soo karsaday meeshaana cabitaankooda usoo shumayaa waxaan rabaa inaan sariirta ku guuro hala seexid markuusaan qabowga u jiro in banaanaha dhis istaaga ma u fiicna xilligan adiga waa 7 saac iyo 40 meelahaas waa la soo wada seexday anibisa xaafada kasoo joodo ana waxaa leeyahay intay kuu hurdaan waa inaa waqti mid time soo qaadatid maasha allah marka waa kana guriga dhan mugdi qabo kadib meeshaan hadii maanta maadaama ilmihii markay imaadeen fadhiga la isaga rafanayay meeshaana hadda muraayadan horta iyo ilmahan ilaahay la kala reebi kar maasha allah waxa gacmo ku yaalo maalinta waa in 10 jeer muraayadan maxaa la dhahayo la tirtiro fadhiga hadii la soo gal wax ugu horeeya 5 farood la saarayo muraayada waay marka hadda muraayada meesha horta soo tirtiraa marka ilmihi iska soo seexiyay kadib sariirihii aan soo jajafayaa sariirihii ma ahane kuraastii barkimahoodan si fiican u saaraya barkimahan horta dhulka la soo wada dhigaa ilaahay khayr ha siiyo ilaahay inta ilmo haysan ilaahay ilmaha ku irsaaqo insha allah marka kadib waa kana hadadaan fadhigi markuu maxaan dhahaa roob intuu saan u doo wali wada ay hadadaan oo daaqada ku furanta qabow ku soo galayo uunsigaaga ama cuudkaagana aad ku soo shidatid fadhiga maasha allah jawigan macaan marka waa kana hadda xalay inta ilmaha hurdaan kaliya meesha maskaxda aad dejisatid meeshaanan uunsi ku soo shidanayaa roob yar waxay soo macaan ay saak ilaa maanta roobka nagama wadaginbo kadib meeshaana waxaan rabaa inaan soo akhristo quraankeyga waqtiga aan firaaqada u hayo quraanka akhrisan karo waa waqtiga aroorta salaad subaxi ama waqtiga maxaa la dhahayo ilmaha markay xilligan oo kale iga seexdaan maasha allah baa waqti u helaa adkaarta quraanka ilaahay kuwi maxaa la dhahayo markasta xasuusta naga dhigo kadib meeshaana waxaan dhageysanayaa Moon Media Mubaarak Haadi wuxuu ka hadlayaa mowduuc aad muhiim u ah waa idin shidaa inta dambe saa u aragtaan wuxuu ka hadlayaa ilmaha iyo telefoonka wallahi ilmaha telefoon waxba kala helaya oo aanka illa xifdisiyada waxa ka awleysan in ilmaha rabbigiisa la baro saamaynta ay tabletska iyo telefoonada ilmaha ku leeyihiin oo midka le waa mistake weyn oo hooyada ama aabuhu hadda cid ilmaha barbaarinaysa ay sameynayso hawa in telefoonka ilmaha ku aamusiiso mustaqbalkiisa aamusiinaysa ilmaha maanta awoodooda basal xilile waalidka awoodiisa waa labo god awoodiisa maanta waalidka waa labo god ilmaha maanta laga awoodiyay barbaarinta aqoon kaliya waa aqoon xiliyad xilli kasta waxay u baahan tahay barbaarinta inaad upgrade ku samayso marka mowduucaas mowduuc aad xasaasi u ah buu ahaa wuxuu soconayaa adiga muddo saacad iyo bar camal aniga hadda waxaan ka daawaday 45 daqiiqo camal inta kale waxaan la caawa daawadid insha allah marka waxaan ku baraarujinayaa hooyooyinka inay soo dhageystaan wax badan bad ka faa'iideysaan marka meeshaana ilmihii shurbadooda u soo kariyay waxaan leeyahay casir waa xilligan intay soo kicinaa shurbadooda mid walba galaaskiisa dhab ku siisid marka waa isku soo nabad laaban doonaa insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله باي باي